وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحاول دقي معلمها خير كبضان بون أيان كتشدنا oo maalimihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku sheegay nabi maxamedna ahadiisiisa alayhi salatu wassalaam ku xusay. hadaynu ku horeyno aayadaha quraanka ku soo aroray waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wal fajri wa layali al-ashr, wala sidaan ognahay maalinba sidaan la socono ama sidaan ognahayba mawsim kasta iyo waqti kastaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kala fadilay sidoo nabi maxamed uga fadilay nabiyaasha kale, sida uga fadilay quraanka kutubtii Ilaahay soo dejinay, sida uga fadilay Ilaahay subhanahu wa ta'ala malaku jibriil malaa'ikta, sida Ilaahay uga fadilay Makka ama goobta ugu qaalisan meelaha kale. marka walaalayaal waqtigan aanu hadda sheegayno aynu ka warmi doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka fadilay maalimaha oo dhan, sanadka oo dhan buu Ilaahay ka fadilay 10 cisho ee Ilaahay ku dhaartay uu leeyahay walayali al-ashr. nabi maxamed alayhi salatu wassalaam waxa ka sugan inuu yiri axaadiista waxa ugu xadiiska nabi maxamed ka sugan waxa weeyaan oo nabi maxamed uu leeyahay amal la sameeyo waxa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan oo xagga Ilaahay laga jecel yahay 10 cisho aynu ku jirnay 10 ugu horeeya Dhulxijja. marka walaalayaal waxa nabiga la weydiiyay alayhi salatu wassalaam hatta miyuu ka khayr badan yahay oo ka wanaagsan yahay qofka dagaal u baxay jihaad u baxay. nabi maxamed alayhi salatu wassalaam wuxuu yiri waa ka fadli badan yahay ilaa wuxuu ka soo reebay nabi maxamed alayhi salatu wassalaam qof u baxay jihaad naftiisa iyo maalkiisa aanan waxba kuna soo noqon dalka ku soo noqon oo ku waayay maalkiisa iyo naftiisa iyo xooggiisa iyo dhammaan wixii uu haystay ninkaas oo kaliya ka fadli badan. laakiin waxa weeye maalimo aad u qiimo badan waxa ku jirta maalin sharaf leh oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaafayo dambigiisa sanadkii hore iyo sanadkan soo socda sida uu nabigu sheegay alayhi salatu wassalaam. وبالمناسبة ابن حجر العسقلاني وشيخ شرحي بخاري فتح الباري كشرحي markuu ka waramay uu yiri maalmahani maxay kaga fadli bateen maalmaha kale. waxa uu leeyahay ummahatul ibaadaat ama cibaadooyinka la yiraahdo waa hooyooyinka cibaadooyinka ayaa ku kulmay balo fiirso waa salaadii waa soomkii waa sadaqadii waa xajkii. waxa uu leeyahay maalmo la mid ah oo ay sida ugu kulmeen ma jirto. sida darteed baa inoo oran karnaa asbaabaha ay ku fadli bateen waa kamid. sheekh weyne isagana la yiraahdo ibn Rajab al-Hanbali isagana waxa uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu ina abuuray wuxuu nafeena ku abuuray jacayl aanu jecelnahay tagista gurigiisa xaramka ee barakada leh. qofkana waxa waajib ku ah sanadkii ama umrigiisii hal mar inuu xajiyo. suurtagal uma aha qof walbaaba inuu noqdo xaaji sanad kasta. hadaba si fadliga loo helo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sharciyay intaynaan xajka tagin inaynu ka gacan qabsano aynu kaga faa'iideysano maalmahan khayrka badan oo laga yaabo inay u dhigmaan ama ay ka bataan acmaal fara badan oo aynu sameeyno maalmaha sanadka intiisa kale. waxa kale oo baraarujinaya barakallahu fiikum culim badan oo in badan ka hadlaan sida Sheekh Islaam Taymiyo oo kale oo ay tilmaamaan macsiyada iyadoo mar walba dambiya oo khatarteeda leh in haddana mawaasimta iyo amaakinta fadliga badan leh macsiyada dhacda ama lagu sameeyaa ay ka weyn tahay macsiyada waqtiyada kale iyo goobaha kale aan fadliga lahayn la sameeyo. marka aynu iska ilaalino aynu ka waantoono macsiyadu nooc walba ay tahay. waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah dadku 9 cisho hore way dadaalaan, haddii cibaado noqoto way dadaalaan, hadday noqoto dambi ka dheeraana way dadaalaan, laakiin maalinta 10aad oo ah maalintii ugu fadli badnayd way isdhigtaan. kaanama waxay moodaan in aan maalintan aan kuba jirinba maalmihii 10ka ah. maalintaasi oo ah maalin ciida oo aad moodo ka bulshahaan in macaasi badan ay dhexdeena dhacdo, hadday noqoto heeso, hadday noqoto hablihii la qaawinayo kuwa qaan gaaray, hadday noqoto munkaraad kale fara badan. waxaan u baahnaa walaalayaal maalintaasi ciida in aynu ku dadaalno inaynu ka dheeraano dunuubta iyo dambiyada iyo macaasida nooc wal oo ay yihiin.
qodobka ugu dambeeya kusoo gabagabeynaya waxay tahay baaraka allahu fiikum maalmahan waxaa lainoo sharciyeeyey salafkeennii iyo dadkii hore wanaagsanaa ibnu cumar abu hurayra mujaahid saciid ibnu jubayr rag fara badan ay caan ku ahaayeen inay ilaahay subxaanahu watacaala weyneeyaan oo takbiirta iyo weyneynta ilaahay subxaanahu watacaala la weyneynayo ay suuqa u geli jireen oo ay dadka xasuusin jireen markaa markaynu guryaheena joogno goobaheena shaqada suuqyada inaynu xasuusnaano qadiyadaasi ku saabsan atakbiir oo ay culimmadu yidhaahdaan takbiirta laba loo qaybiyaa mid soo bilaabanta cashru dilxija markay soo bilaabanto kowda cashru dilxija iyo mid muqayad ku ah maalmaha ayaamu tashriiq oo habeenka ciidul adxa ay soo gasho bacda ghuruub shams ilaa aakhira ayaamu tashriiq ay soconayso marka baaraka allahu fiikum inaas baynu kusoo gabagabaynaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam waxkam wabillahi towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk